saakay muuqaalkaygan wuxuu ku socdaa qof walba oo Soomaali ah oo damiirkiisu uu nool yahay oo arki karaya waxa maanta taagan isla markaana fahmi karaya waxay nagu soo aadan. waxaan idin sheegayaa shanta sano ee fooda nagu soo haysa ee sanadka soo socda ee 2025 bilaabanayso 2025 ilaa 2030 oo kale shantaas sano ee fooda nagu soo haysa haddaan la helinin urur diimeed hogaamiye kacdoon shacab oo dalka looga xoreynayo dawladaha dariska ah ee dalka iyaga ku soo duulay oo number 1 ay ka tahay dawladda Itoobiya. Soomaaliya waxay noqon doontaa killer ka mid ah killerada Itoobiya ee markaa Itoobiyaanku ay haystaan ka mid noqon doontaa. waayaan u leeyahay urur diimeed hogaamiye shacabka oo markaa shacabka indha u noqda. markii aad fiiriso wixii ka dhacay Afghanistan, markii aad fiiriso waxa ka dhacay meesha loo yaqaano Syria, markii aad fiiriso dhaqdhaqaaqyadii u dambeeyay ee dalkaasi ay qayb badan ka mid isku xoreeyeen, urur diimeed xambaarsan diin iyo wadaniyad isku jirta ayaa shacabiyadooda inta hogaamiyay dalkooda ku xoreeyay, kana xoreeyay cid walba oo markaa ka hor imaanaysay. mar walba oo la doonayo dalka in la xoreeyo lagama maarmayo diinta inay frontline noqoto, waayo meesha waxa ka jira jihad wey. qofka Soomaaliga in la yiraahdo sharafteena difaac iyo jannad galaysaa ee dagaalan wuxuu maqli karayaa jannad galaysaa ee dagaalan. sidaa daraadeed markaa lagama maarmi karayo qadiyada diinta mar walba oo la dagaalamayo dagaalka lagu dagaalamayo dagaal xaq ah u yahay. Itoobiya waxay Soomaaliya ka dhigtay paralysis bay ka dhigtaa. gacmaha ma nuxnuxsanayaan, faruhu ma nuxnuxsanayaan, luguhu ma nuxnuxsanayaan. hadda marka Itoobiya ay bilowday marka inay Soomaaliya laqdo markii hore way disha paralysis bay ka dhigtaa, laakiin hadda way laqaysaa, way daldalaysaa. baasha jabisada la yiraahdo ee maska ah ee aad ka u balaaran ayaa waxay samaysaa marka hore xoolaha inta isku laabto ayay burburisaa lafahooda iyo murqahooda ay burburisaa. neefkii markii uu kici waayo laakiin wali asagoo nool ayay jabisadu bilowdaa marka inay laqado neefka. muhiimadeedu marka waxay tahay dalka iyagii waa la haystaa. mashaakilka ugu weyn ee maanta ina haystaan ah waa laba mashaakil weyn. in dalka iyaga la qabsado waxa keenay laba mashaakilood weyn. midda ugu horeysa waa xog la'aan, midda labaadna waa marin habaabin weyn. siyaasiga Soomaaliga ama xilka ha jooga ama banaanka ka qayliye ummadda Soomaaliyeed ninka marin habaabinayo cadowga u ah waa asaga. ummadiina xog ku fil oo ay ku dagaalanto ma ay haysato. siyaasiga irbad ku duraya markaasay seexanayaan, markaysaa. sidaa daraadeed dalka iyagu qatartaas ku jiraa. Itoobiya badii Soomaaliya waa loo saxiixay, waxaana Itoobiyaanka gadaal ka riixaya dawlado aynu garanayno oo maanta dunida aynu joogno mashaakilka ugu weyn ku ah. laakiin cid walba oo Soomaaliya ku soo duusha haddii ummadda Soomaaliyeed ay inta istaagto ee dalkeeda difaacato, wallahi cid qabsan karta inta jireen lama qabsan karo. Soomaaliya weligeed lama qabsan. xabashi uraysana Soomaaliya ma qabsan karto. cidda difaacaysana ay ahaato kow urur diimeed wadani ah yaan ahayn waxa Soomaaliya jooga ee argagixisada ah ee makorayaasha ama koran xataa. ninka Soomaaliga ee siyaasadiisu ma korto. midka sheeganaya inuu yahay urur diimeed naftirkiisu aqliyadiisu ma korto. meel walba dadka iyagu ma koraan. u fiirso Taliban way ka baxeen argagixisada markii ay dalkooda qabsadayeen. argagixisada nin bay dhaheen oo maxaa tiin baa la yiri ururka cadoon doona oo dalkooda maamulaan doonayo siyaasi abaan hay bay dhaheen. laga qaado cunaqabatayntii iyo argagixisada miliiska laga saar. Mareykanka la fariisteen. Syria ninka hogaaminaya argagixisu ahaan jiray, Al-Qaacida ahaan jiray, way ka baxeen. waxa la urur diimeed ahna way isku tageen. urur siyaasi abay noqdeen. kuwan duurka noogu jira ee gabdhaha iyaga laaya waa makorayaal wey. marka kuwa ka fiican oo wadani ah oo la jaan qaadi kara caalamka waxa ka jira oo kitaabka iyo dalka iyo wadaniyada labada gacmood ku wada wata, yaani argagixiso ahayn, Al-Qaacida ahayn. kuwaaba dalka ugu baahan yahay. uma baahnin siyaasi dambe oo tuug ah oo ummadda iyada marhaabinayn uma baahnin. ninka way dalka naga xoreyn karaya. waana midda ay caalamku hadda dunida muslimka midda ka socota midda way. waxa la wixii urur ahaa ka bixin argagixiso baniin badan.
القاعدة من هنا بعدين هاي كون كوها يوي because of ما فهمي كلا واحد دون ذاك الصعدة سيد السياسي يو وبابا وياهي بيعيقون بابا وياهي هذا الشيء يا مركز الصومالية أدير ولا قادنا يا in the next 5 years وأنا لا بالله إن لا دلدلو أما لا لقوه حدي أن لهيلين الدفاع وأي دبكة هنا إلهي محمد خالق غيبان كون أرتين أن دلدل بالشيء مسحن دوركي هبين هذا الصودا في إلهي جوجله أنت وحن كفكرية حقيقة ذلك يو الصعدة يا إنا قادنا يا ول وهذا ذلك كان دونيا وراد بردين سلام يا مال بدي مقلسان يسول بدي مقلسان